kusoo dhawaada channelkeena Afghan Media. fadlan haddaan ugu subtahay subscribe gambalaalkana furo. qiso cajiib ah oo ayna tusayso wadada toosan. waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ahaa. wuxuu ahaa wiil ay waalidiintiisa ku dadaaleen tarbiyadiisa. wuxuu ahaa wiil diinta ku firfircoon, uuna jeclaa mar walba in afkiisa iyo gacmihiisa dadka ay ka nabadgalaan, dadna uusan nabi jirin. salaada waqtigeeda ayuu dukan jiray, sadaqada wuu dhiiban jiray, maasiyadana wuu isku ilaalin jiray. wuxuu ahaa nin naftiisa ka adag. maalin maalmaha ka mid ah asigoo fadhiya masjid akhrinaya qur'aan, wuxuu sugayaa salaada asr ilaa laga dhimo. kadib daqiiqado waxaa loo istaagay salaada. wuxuu iska duubay kitaabkii uu akhrinayey. wuxuu u istaagay salaada inuu dukado, kadibna wuu wereeray. wadnaha ayaa aad u garaacmeen. wuxuu ku dhacay dhulka. waxaa ku soo kala orday dadkii masjidka ku dukanayey. iska markiiba waxaa loola orday isbitaal. markii digtoorka loo geeyey ayaa la baaray. digtoorkii waxa uu ogaaday inuu aad u hanuunsan yahay, xaaladiisana aad ay u xun tahay. kadibna digtoorka oo naasan uuna isdhahaya wiilkan badbaadi ayaa wiilkii waxa uu gacanta ka qabtay digtoorkii. waxa uuna dhigda uu sheegay. digtoorkii wuu ooyey, kadibna wiilkii wuu ashaatay, wuuna dhintay. kadib ayaa dadkii digtoorkii waxa ay weydiiyeen, muxuu kuu sheegay wiilkan intuu uusan dhiman? markaas ayuu digtoorkii yidhi, wuxuu igu yidhi, digtoore, waxba ha isdaalinin, aniga booskayga aan jannada ka lahaa hadda ayaan arkaa.